idinkana waxaa la rabaa inaad wax walba ka hormarisaan in dalkan la xoreeyo xornimo markay timaado aan xorowno yaa waxaa imaanaya nabadgelyo markay timaado yaa waxaa imaanaya maamul iyo kala dambayn markaas weeye marka canshuur iyo mushaharo iyo horumar la gelayo soo ma fahmin marka hore waa inaan nafteenna qadinno marka hore waa inaan gunnimada ka baxno ma maqasheen intaas waa ku ballanna soo maha soo uma taagnin inaan difaacanno diinteenna soo uma taagnin inaan difaacanno dalkeenna soo uma taagnin inaan difaacanno degaankeenna midarbaan horo galay niyadaydu waa meel midarbaan horo galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli kuwani waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku kala sugan gobolada dalka waxa ay u dhaarteen oo ay diyaar u yihiin ka jawaabidda su'aal ay inta badan isweydiiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed taas oo ah goorma ayaa gobolada dalka lagu xoreynayaa maleeshiyaadka shabaab inaan u hogaansanaado dhammaan xeerarka xoogga dalka Soomaaliya xeerarka kale ee dalka u degsan inaan u fuliyo amarada madaxda arkashala'aan inaan heegan iyo gaashaan u noqdo difaaca iyo horumarinta qaranka Soomaaliyeed waxaan ahay naftii hore waxaan ahay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe عودنا كم موضع دليل الصوماليات وصول استاكتي نفتوذا إن كفرتو قرن شوذا يقوم قبل كيمان قبيل كيمان قويس كيمان بيتكمل يا انتي رياضا نسول ويني إني مركي أمطوري ديار موتهاي ناقل كان الدفاع له وغيروا حنسول هاي انت نفتي لتبحنا الدفاع قرن ضلب وحود كل واجبات وأنا كسر بحضان واجبات كاس إنكنا حضرك كل اللي حقوق وأنا دي بلن قال يا أنت أنا في الوزارة وطن الكاهي مدحرينين إنه فرماجية حقوق لنا هاي الشعب in Soomaaliya si sax ah looga xoreeyo al-shabaab uma baahnayn oo kaliya in dagaal la qaado oo laga xoreeyo meelaha ay haystaan laakiinse waxay u baahan tahay qorshe dhameystiran xasilin dheer iyo dawladnimo waarta waana midaas tan laga shaqeynayay muddada uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmihii u horeeyay ee xilka la wareegay madaxweyne Farmaajo waxa uu magacaabay guddi u kuurgala xaaladda ciidamada tayadooda tiradooda iyo inay u diyaarsan yihiin qaadista hawlgallo dalka looga sifeynayo shabaab natiijadii soo baxday waxa ay noqotay inay jirto kala daarsanaan dhinaca ciidamada ah iyo in loo baahan yahay diyaar garow xoog leh markii intaas la ogaaday kadib madaxweyne Farmaajo ayaa go'aansaday inuu si rasmi ah xafiis uga furto wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya isaga oo sheegay in waqtigiisa ugu badan uu siin doono dhismaha ciidamada qalabka sida haddaba dadaalkii madaxweynuhu ma guuleystay ma jiraa qorshe dhameystiran oo loogu diyaar garoobay xoreynta gobolada shabaabku haystaan waxaa muuqda in la diyaariyay qorshe taxaddar ku jiro oo dalka looga tirtirayo shabaab iyo in la dejiyay miisaaniyad maangal ah oo loogu talagalay ciidamada qaranka sidoo kale marka la fiiriyo niyadda ciidamada xoogga dalka tayadooda iyo muuqaalka ka muuqda waxa ku soo baxaya in ay sax ahaayeen tallaabooyinkii uu qaaday madaxweyne Farmaajo ka hor intaan la qaadin hawlgallada waxaan qabanay waxa kamid ah inaan telekoom sax sameynay oo ay wax noo kala cad yihiin hadda ciidanka shaqeeya ciidanka shaqeeya ciidanka howlgabka u baahan ciidanka dhaawaca agoonta waxaan gudbinay sharci
sharciga xaqsiinta ay gudbinay oo aan doonayno baarlamaanka si uu dhaqsiya halinu ansixiyo si dad badan oo dee active u ah ciidanka u ah ay u galaan dhanka xaqsiinta oo mushaaradooda inta ay qaataan ay ku qaataan iyagoo howlgab kuwa dhaawaca saasoo kale agoonta sidaasoo kale oo aan kala naqaano ciidanka diyaarka ah oo howlgallada geli kara oo frontiida fadhiya iyo kuwa dhaawaca ah oo u baahan in la taakuleeyo maanta waxaa jira ciidamo awood u leh in ay dalka xoreeyaan ciidamo ay u dhammaystiran yihiin qalab saanad gaadiid iyo weliba xerooyinkii loo baahnaa kuwaas oo bil walba hela xuquuqdii ay lahaayeen mar kasta askariga ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay naftiisa inuu hor ummadan xaliyay qiimaha weyn ka weyn oo qofku u bixin lahaa ma jiro qiimaha ugu weyn mataqaana ugu sarreeya waa nafsadiisa iyadoo diyaar leeyahay taas baa waxa rabaa in ummadda Soomaaliyeed u sheego inay ku qiimeeyaan raggaas maaragtay saas ugu diyaara mar kasta tusa dadka Soomaaliyeed Soomaalida sheeganaya isla markaas raba inay dhibaato u geystaan shacbiga Soomaaliyeed kay ka dhasheen ay u dhasheen dalkooda mar kasta aan u ogolayn in dadka nabad helo aan u ogolayn mataqaana deganaansho la helo aan u ogolayn marnaba in la helo maxaan ku raahdaa horumar hortaagan in uu yahay ninka ka soo horjeeda jiritaanka ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay yani waa nin u soo tafaxaytay runtii in ummadda Soomaaliyeed la dagaalamo oo haddana Soomaali sheegeen ninka caqli xun inuu jiro u malayn maayo qofka saas ku aansaday oo rabo dadka Soomaaliyeed inuu laayo Soomaalina ah rabaan inuu ku noolo dalkani waa nin caqli lahayn oo caqli ku jirin waxaan leeyahay caqliga Allah ku soo celiyo kuwa wadana sidoo kale caqliga Allah ku soo celiyo dad caqli la maaha sabab ummadda Soomaaliyeed aad adigoon kala soocin aad u leeysay anuu ma garanayo qof justification uu helayo mid diini iyo mid caqli iyo mid siyaasadeed midna u helamayso ayagana waxaan leeyahay ka waantooba mudadaas khaldan aad ku socotaan ka waantooba haddaad diidaan inaad ka waantoobi weydaan oo dee aad iska dayi weydaan waxaa khasab ku ah ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed inuu idinla dagaalamo sidii hore idinkula dagaalamayay oo leedinka celiyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ku haysaan dhibaatada aad ku haysaan in leedinka celiyo leedin tuso marka tabartiina intay la eg tahay marka idinkaa doortay inaad ku dhimataan dagaal xaq darro ah oo marnaba aadan ku guuleysanayn aakhiri adduun midnaba adduunkana kuma guuleysanaysa aakhirana waa loo inaad ku guuleysanayn marnaba dagaal xaq darro aad ku jirtaan annagu waxaana dad xaq diriira oo ogol inay u dhintaan sharafta ummadooda markii ay ciidamadu xoreeyaan aag ama degaan waxaa la diyaariyay qorshihii lagu xasilin lahaa oo ay uga shaqayn lahaayeen hay'adaha dawladda sida booliska nabad sugidda iyo garsoorka tallaabada kale ee cadaynaysa in dhammaan hay'adaha dawladdu ay u diyaar garoobeen xoreynta gobolada dalka waa iyadoo la diyaariyay qorshihii looga hirgelin lahaa adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada degaan kasta oo laga xoreeyo shabaab qorshaha cusub ee la diyaariyay ayaa meesha ka saaraya sidii hore u dhici jirtay in ciidamada xoogga dalku ay isaga baxaan degaankii la xoreeyo mar haddii uu diyaargarowgaas xoogga leh iyo qorshaha dhammaystiran ee dalka looga xoreynayo shabaab uu jiro oo ay dawladdu diyaarisay maxay tahay kaalinta looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed hoggaanka iyo shacabku inay isugu tagaan dhammaantood in ay dhisaan ciidamadaas qaala tacaala waaciduu lahum mastadaatu min quwa waaciduu wawdaas waa jamaaca la yidhahdaa waxay ka hadlaysaa in dhammaan la isugu taga ciidanka dhismihiisa hoggaanka ugu sareeya dalka iyo shacabkii iyo dhammaan qaybaha dawladdu ka kooban tahay waxa ay kulligood si hagar la'aana uga qayb qaateen dhismaha ciidan taya leh awood leh aqoon leh oo awood leh maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay waaciduu lahum min quwa quwadaasna waxaa lagu fasiray quwadda iimaaniga ah caawan faahfaahin doonaa iyo akhlaaqda iyo quwadda aqooneed oo ciidanka rabaa inuu xirfad sare leeyahay iyo quwadda aaladeed oo aalad uu ku dagaalamayo iyo quwadda dhaqaale waa la rabaa isaguna inuu ciidanku uu baahidiisa loo daboolo marka waxaa weeye halkaas ayuu uga jiraa islaamka iyo dowladnimada guud ahaan fursadda weyn ee ay maanta haysato Soomaaliya waa in ay dalka hogaaminayaan madax ay ka go'an tahay dhismaha ciidamada qaranka iyo ka safaynta dalka kooxda nabadiidka ah ee shabaab
Kusha, kusha, kusha,